السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالي الوادي سلام ميل كستو الدنيا كجوجتي وأنا وعبد الغني محمد حسن يوتيوب كا داونيسينا ولا وين فيلمس maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago barnaamij goorma ayaa lagu soo dhawaaqi doonaa gudoomiyaha degmada Walaweyn waase kuma musharaxa ama qofka noqon doono gudoomiyaha maaliyadda ee degmada Walaweyn maadaama soo socdo gudoomiye cusub. barnaamijkan aad ku ogaan doontaan ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. isku soo noqod wanaagsan asxaabay fadlan hadii aad halkan ku cusub tahay intaan fiidiyoga bilaabin fadlan hadii aad halkan ku cusub tahay subscribe saar gambalelkan furo fiidiyogana like saar maanta waxa aan ka hadlaynaa saad hordhac baad ugu maqasheen goorma ayaa lagu dhawaaqi doonaa gudoomiyaha degmada Walaweyn maadaama baryahan xam badan iyo warar badan la isla dhexmarayo degmada waase kuma musharaxa ku aadan qabashada xilka gudoomiyenimo ee dhanka dhaqaalaha isha dhaqaale ee degmada Walaweyn waa kuma hadii aynu ku horeyno qodobka goorma ayaa lagu dhawaaqi doonaa gudoomiyaha degmada Walaweyn musharaxiin badan ayaa tartamaya maraba inaan kala qaado ama aan xuso dabcan dadka degmada jooga si fiican bay u wada garanayaan dadka kulay degmada banaankeeda joogan way ka war hayaan waxa lagu dhawaaqi doonaa maalinta sabdiga إن شاء الله دو إله إدمو بالشدة رير Walaweyn maalinta sabdiga waxay maqli doonaan qofka saxda gudoomiyaha degmada Walaweyn maalintaas ayaa la ogaan doonaa xiriir badan iyo wareysi hoosaad badan markii aynu sameynay waxa ay noo cadaatay in maalinka lagu dhawaaqi doono gudoomiyaha cusub ee degmada Walaweyn qofku noqon doono Ilaahay baa garanaya walow ay jiraan hadallo badan ee la isla dhexmarayo degmada laakiin warkaasi waxaan leenahay waxba kama jiraan ilaa iyo haddana laguma dhawaaqin gudoomiyihii saxda ahaa ee degmada markaasi hawsheeda la wareegi lahaa marka sidoo kale waxaa la isla dhexmarayaa beledka waxaa la isla dhexmarayaa degmada yaa noqon doono gudoomiyaha degmada yacni gudoomiyaha dhaqaalaha dhanka maaliyadda ee bedeli doona markaasi maxamed cabdillaahi koosto oo markaasi waqti xaadirkan gudoomiyaha maaliyadda degmada Walaweyn isla markaasna gudoomiyaha ku xigeenka degmada Walaweyn waxa noqon doona gudoomiyaha maaliyadda degmada Walaweyn mudane Cabdiqaadir Siid Abuukar waxa laga yaabaa inaad markaasi aad is leedahay waa kuma Cabdiqaadir sawirkiisa meelahan aan soo dhigaya insha Allah Cabdiqaadir ayaa noqon doona gudoomiyaha maaliyadda degmada Walaweyn insha Allah isagana waxa weeyaan waxaan u rajaynaynaa guul iyo horumar iyo dadaal wacan waxaan leenahay hambalyo isagana ilaa iyo hadda laguma dhawaaqin laakiin waxa weeyaan sida saadaasha ay u badan tahay 99% markaynu sameynay baaritaan fara badan iyo xog wareysi fara badan waxaan ogaanay in Cabdiqaadir uu noqon doono gudoomiyaha maaliyadda ee dhanka dhaqaalaha degmada Walaweyn sidoo kale waxaan insha Allah taala barnaamijyadeena soo socdo maadaama gudoomiyaha degmada lagu dhawaaqayo maalinta sabdiga goormo ayuu imaanayaa intaasoo ku soo degayaa maxaa qorsheysan insha Allah fiidiyoyada xiga ayaynu kaga wada hadli doonaa aad iyo aad ugu maasantiin daawashada fiidiyogan fadlan hadii aad halkan ku cusub tahay subscribe saaro gambalelkana furo si fiidiyo walba anaga aan soo gelino aad markaas dawla socotid fiidiyogan hadii aad u aragto inuu yahay mid oo dad badan anfacaya si share gareey aad iyo aad ugu maasantiin daawashada fiidiyogan waa next video